بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يعني الله سبحانه وتعالى ما هذا سكله waxaan kusoo dhex jirnay muuqaalka quraanka maanta waxaan qaadanaynaa suurata yaasiin bismillahir rahmaanir rahiim a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri alam ahad ilaykum ya bani aadama alla ta'budu ash-shaytaana innahu lakum aduwwun mubiin wa an i'buduni hadha siraatun mustaqiim wa laqad adalla minkum jibilan kathiran falam takunu taqilun Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri miyaanan idinkula ballamin haddaad tihiin awlaaddii aadam allaa tacbudu shaydaana inaadan shaydaan caabudin innahu lakum caduwun mubiin wuxuu idin yahay col cadow buu idin yahay cadownimadiisa waa maxay waa cadownimo cad weeye oo aanan waxba dib lala dhiganaynin waana icbuduunii caabudu miyaanan idin odhan haadaa siraatu mustaqiim waddadii toosan waa taha oo ilaahay subxana watacaala lagu gaarayey waa inaad ilaahay subxana watacaala keligii caabudda waxna aan la wadaajinin weeyaan waddada aad ilaahay subxana watacaala ku gaaraysa walaqad adalla wuxuu lumiyey minkum adinka jibilan kaiiran ummado badan jiilal badan buu lumiyey afalam takunuu tacqiluun walaqad adalla qablahum akharu lawaliin waa suu ilaahay subxana watacaala sheegay walaqad adalla qablahum akharu lawaliin dadka intooda badan hor u lumiyey weeye shaydaanku marka waxaa weeyaan dhibkaasuu leeyahay oo waxaa weeyaan waana kuu sheegayaa awooddiisaba intay dhan tahay ibni aadanka ayagaa marka waddada shaydaanka uu raalliga ka yahay mara oo ku luma laakiin shaydaanku wax awood laho maanta intii dhabi kuu qaata ama qori kuu qaata waddo ku marinaya ma ah itaalka ilaahay subxana watacaala ma siinin qur-aanka allah subxana watacaala wuxuu ku tilmaamay shaydaanka inuu wax iska maleeyey laakiinse malihiisa ay u suura gashay walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu fattabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin buri allah subxana watacaala ibliis waxaa weeyaan malihiisii baa u rumoobay fattabacuuhu waa raaceen ilaa fariiqa min almu'miniin haddaad aragtay marka meel ummadda ay ku wada durdurinaysa walle meesha ibliis kama marnaa meel lagu wada yaacayo intaa loo durbaantumanaya haddaad aragto waa meel ibliis calanka surtay weeye marka waxaa loo baahan yahay in la ogaada maanta in qof walba uu naftiisa ka faa'iidaystay intuu nool yahay qofka maanta qabriga jiifa jaanis ma haysto uu ilaahay ugu soo noqdo laakiinse adigu jaanis baad haysataad ilaahay ugu soo noqoto dembi kasta oo aad gashay nasiib aad ilaahay ugu soo noqotaad helaysaa markayuusan wakhtiga kaa lumin ka faa'iidaysa oo cimrigaada waxaanan macno lahayn ha ku lumin marka shaydaanku waxaa la yidhi asagu awooddiisa dhanba waa kooban tahay oo waxa weeyaan asagu wax awood uu ku leeyahay qof ilaahay rumeeyey maba leh wax awood uu ku leeyahay ma leh marka shaydaanku waa laba qaybood waana kala daran yahay allah subxana watacaala qur-aankiisana waa noogu tilmaamay waa kan qur-aanka uu ku tilmaamo allah subxana wataala alladii yuwaswisu fii suduuri innaas dadka laabuhu buu waswaasiyaa waa alkhanaas weeye waa midka isqarinta badan alladii yuwaswisu fii suduuri innaas min aljinnati wannaas waa min aljinnati wannaas waxaa jin iyo insiba waa leeyahay marka kan jinka ah markii acuudu billahi min ashaytaan rajiim tirahdo waa kaa cararaya waaba kaa tegaya laakiinse kan insiga ah baqari birbinaas dad ku akhrisa halkaasuu soo taagay kaa dhaqaaqi maayo kaasaa marka mushkilad badan waxa marka shaydaanka isticmaalo owliye buu leeyahay shaydaanku junuud buu leeyahay junuuddaasaa marka adigu kuu imanaysa ee shaydaan socdo oo waxaa weeyaan intii soo labistay oo waxaa weeyaan lugaynaya kuu iman mayo shaydaan la caabudayo oo meel taaganna arki maysa laakiinse dadka waxa lumiya waa junuuddu shaydaan wey shaydaanka junuud buu leeyahay junuuddiisaasuu soo dirayaa oo insi ah oo jin ah waxaasaa waxaa weeyaan kuu imanaya oo sheeko kuu akhrinaya mid qalbigu kaa waswaasinaya mid labadaada indhood buuba soo taagan yahayba haddaanan xisnigii ilaahay subxaana watacaala uu dhufayskii uu allah ku siiyey aadan ka gelinna jar bay kaa tuurayaan marka ilaahay subxana watacaala marka dhufays buu ina siiyey kow arrinta koowaad oo looga badbaadayay waa aliimaanu billah in ilaahay qofka uu rumeeyo ilaahay rumaynta waxaa laga wadaa inaad ilaahay keligii caabuddo waxna aad la wadaagjirin la caabudo waxaa laga wadaa afcaashaada aqwaashaada niyadaada inay tahay inay ilaahay gaar u tahay agow dhegayso ficilka aad samaynayso waxa aad ku hadlayso waxaad qalbiga ku haysato waa in ilaahay gaar u tahay waa inaad ka baqaynin qof dhintay waa inaad weliyo dhimataadan u yeeranaynin waa inaad nabiga baryayn waa inaad waxaa weeyaan cid kale aadan caabudayn aan allah ahayn cibaadada marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay waxaa la yidhahdaa adducaau mukhul cibaada cibaadadu waxaa weeyaan waa dhuuxa baryadu waa dhuuxa cibaadada la yidhi marka hadduu qofka cid kala barya sida hadda soomaalida caanka ay ku yihiin oo waxaa weeyaan dad dhinta loo yeerto dad qubuuraha jiifa loo yeerto waxay samaynayaan waa cibaadada ilaahay u lahaa oo cid kale u leexinayaan arrintaas marka qofka ku jira waa qof shaydaan caabuday wey mar haddaad aragto qof qabri kusii socdo
waxaad ogaataa inuu shaydaanka haysto uu shaydaan caabudayo maalinta qiyaamana uu noqon doono duulka la oranaya war shaydaanka caabudinayso idinma oran shaydaanka awood kale uu leeyahay male waa inuu dadka u yeero waswaasiyo wasaawiskaas waxa weeye asaga iyo junuudiisaba ay dadku ku haysanayaan waxa weeyaan marka sidaas oo kale shaydaanku marka ma aha meel axad taagan oo aad u tagayso oo leedahay shaydaanka waa ka halka taagan inta badan ma dhacdo boqolkiiba boqol aad bay u yartahay in la helo qof oranaya shaydaan baan anigu caabudayayo halkaanaan moogta aan ka galay America waxa laga sheegay baa liir Mareykanka baada ka hor waxa laga sheegay liir kuwa yiri war hadii adduunkiiba shaydaan laga joogi waayo wax walba uu qasayo balde waa in asaga raali gelinay dhansan nabad ugu helno oo dhar madmadow qaatay waa la sheegi jiray laakiinse wali ma de saa wax u cado ma jiraan dad soo tagtaagan oo oranayo shaydaan aan anagu caabudayna marka xaaladdu waa sidaa marka waxa loo baahan yahay in aad iska ilaaliso waxa nabiga kaleeysa Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku tilmaamay qofka inuu naftiisa caabudi karo wax kale iska daa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri afarayta man ittakhadha ilaahu hawaahu afa anta takunu alayhi wakilan afarayta man ittakhadha ilaahu hawaahu ka waran kan naftiisa ilaah ka yeeshay naftiisa ilaah ka yeeshay macna waxa laga wadaa wax Allah wuxuu nafti shaydaanka ku soo rido horu ka fulinaya maba eegay waxaan ma amar ilaahay baad khilaaftay ma waxa weeyaan waxaan cibaadana aad sameynayso ilaahay raali ka yahay ma ka ah eegi maayo horu kaga dhaqaaqaya marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay shaydaanku inay tabartiisu yartahay marka tabar male wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu yiri inma suldanuhu ala alladhina yatawallawnahu awood wuxuu ku leeyahay shaydaanku alladhina yatawallawnahu ku xigsanaya oo adeecaya oo warkiisa yeelaya kuwaas weeyaan shaydaanku waxa awood ku leeyahay walladina hum bihi mushrikuun kuwa ilaahay cibaadadii u lahay shaydaanka la wadaajiyay kuwaas uu moogta shaydaanka awood ku leeyahay qof mu'mina shaydaanka awood ku mala maalinta qiyaamada la tagana Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri waqala shaydaanu lama qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi saas oranaya marka arinta lagu kala baxa ba wuxuu oranayaa war ilaahay ballan buu idin qaaday xaq ah wa wa'adtukum ballan baan idin qaaday fa akhlaftukum wa idin kaga baxa ballan been bay ahayd bir waxaan idin akhrinayay sanawaadka waxa kama jiraan buu oranaya waa idin kaga baxay buu leeyahay wama kan li alaykum min sultan sawa qiranaya wama kan li alaykum min sultan war wax awooda aan idin kulaha ma jirin illa an da'awtukum wa idin yeeray fastajabtum li wa ajibteen bal hadalka aad u dhageystay maalinta qiyaamaha hadalka uu shaydaanka oran doono dhageystay illa an da'awtukum wa idin yeeray fastajabtum li wa ajibteen wa aan idin yeeray wax kale ma jirto way ajibteen fala talumuni walumu anfusakum booranaya waxba eedaynina aniga hayga daba jaaqleynina adinka meelaha ku yoyotama oo waxa weeyaan hay soo aadina booranaya moogta mana idin gargaari kartaa ma wama antum bimusrikhiya adinkana niman hiilin karaya ma tihiin ana idin hiilin karaya inni kafartu bima ashraktu min qabl halkaas ka dhacaya wixii hore aad ilaahay ila wadaajiseen waa ku gaaloobay idin ku nacay saasuu leeyahay inna zaalimiina lahum cadaabun aliim zaalimiintana cadaab xanuun badan bay leeyihiin saasuu oranaya markuu ilaahay hortaga saasuu oranaya shaydaanka marka adduunyada ma isu soo matala waa isu soo matalaya waxa xaqiiqada quraanka ku soo arooray in maalintii badar gaalada uu soo dhaxgalay oo nin Suraaqa bin Maalik nin la oran jiray buu soo ekeysiyay baa Suraaqa miyuu ahaa magaca inuu lahaa rajaynaya nin waxa weeyaan Qurayshta la daris ah reer la daris ah nin ka soo jeeday buu soo ekeysiyay markii waxa la yiri ciidanka arkeen waa kala yirna ka saala aqibay gadaal buu baxay markii labada ciidan arkeen bay dhaheen ilaa in ya Suraaqa waxa geedu socota markaasuu yiri inni ara ma la taroon inni akhafu Allah rabbul alamin وقال الشيطان للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين واساس مر الله مرك الشيطان كوه بصده ماشى وقفك كوبا يكوهوي بوك دقاقيا وأرنا ولا نقول حبين نجمع دحيان هل كاسو مرك الشيطان كمرك إتالكيس وأنت ووسواس وأنت كبضا ملها هذا أركت مرك قفل ليه الشيطان بايسك كحيستي جنبا وضوته مال بقول بكل دنيا كم بوياليا هذا شفاها لو أرض كان هلا يلا وحاش الشياطين أي كل شيء ستوي وهذا الدين إلهي إلهي أنت ضيعي وإلهي سبحانه وتعالى دفيسك اسمي كبحي أو بنانك نجا الشياطين بنانك كشوي هذا إلهي الرمين يان وإيمان يالنا إلهي كل عابدين إحنا إلى وذا جنين أودوا ملها الشيطان كانوا إسكوا وضوات ومربى ميل كل جدده ومربى سي أقلا وسوق كل حد لجده وحافظ كل شيء يسوي وميلوا ده هذا كهرة واحد لكل مينين أضيع سفر بان isla galnay
wuxuu yiri sheekadii wuxuu inoo bilaabay jinku uu la shaqaysanayay markaa baan yiri bal ii wado ii waran saad ku wada shaqaysataa markaasuu yiri anoo 15 jir ila jaan qaadeen ilaa muddo hadda marka aan la hadlayno waa nin 78 meelaha ku aadan weeyay markaasuu yiri anoo 15 jir bay ila jaan qaadeen ilaa haddeerna waa ila socdaan waxa weeyaan meel ayagu ay raalli ka ahayn ma aadi karo safar haddaan galayo waana ay raalli ka yihiin saylada haddaan xoolo geeyo waxaan ku qasbanahay buu yiri inaan qaybtooda u jira markaasaan ku iri adeero waa gartay markaad saylada tagta wixii de waa arki maysid oo quraanka Allah wuxuu sheegay inaan arkaynin seed ku macaamishaan xoolahooda ku siisaa markaa wuxuu yiri waxaan sameeyaa waxay iigu imaadaan buu sida qof aan garanayo oo kale intii ugu yimaadaan waxay raadaan war hebelo wixii iyaga inoo dhiib waa u dhiibaa buu yiri maalmaha ka mid baa waxa igu dhacay buu yiri sayladii intaan geeyay oo xoolo aan gaday baan hilmaamay buu qismigoodii halka qoorta bahal dhabil igu dhuftiro ciidan qurquriyay buu gabar aan adeer u ahay oo sheekada la socoto iga warqabtay baa inta soo orada waxay tiri war duqa war odaga noo daaya war waa leedan siiniya wixiini war waa diyaar war odaga inaga dilina markaas laga kacay wuxuude loo jaray marka meel ayaga ay raalli ka ahayn ma aadi karo waana sidaas odagii markan arkoon ku yiri adeer waxaan wax tiri maayaane amad kaligees ila Allah kaliga aad caabudida waxa iska deysid markaasuu yiri waxa weeyaan intaas oo dooliya bay leeyihiin intaas oo wadaad ay leeyihiin intaas oo darawaliin bay leeyihiin waxa wadaad iyo warkiisa waxba ka tiri maayo kaasa wax kale hadalkiisu uu ka dambeeyay oo kala tagno waxa adeer waxaan haddaan shaydaan taladu dhiibtaan iyo suuqa haydiida meel walba bay diidaba haddaan marba shaydaan wax ku darsado marka waxa weeyaan waxaad fahmaysaa shaydaanku inuu isaga ciyaaray ibn aadanka marka ay u hoggaansamaan marka arintaas waa arin la rabo in la ogaado waxa weeyaan aad ku baraarugto marka shaydaanku kuma ciyaari kara awood kuma laha wax uu ka tari kaliya male adiga halumin adigu ilaahay kaliya caabud oo shaydaanka caabud marka adigu aad shaydaanka caabudo baa waxaad rabtaa inuu shaydaanku daayo hadana aqli xumada ibn aadanka kamid shaydaan adigu aad caabudaysaa waxa doonaysaa inuu ku daayo hadda ku deyn maayade meeshu doonu kugu lagdaya soo doonu kugu galaya soo doonu ku dandaaminaya aday caabuday de ha ku wada weey maalinta qiyaama ad la kulantana oo ilaahay subhanahu wa ta'ala la hor yimaadana wuxuu ku oranayaa waxa weeyaan Allah baa ballan xaq ku qaaday anna ballan baan ku qaaday waa kaaga bax wama kaana li alaykum min sultaan wax awoodna ma kugu lahayn illa an da'awtukum fastajabtum li wa idin yeeray waa inay ajibteen booranaya dadka muuminiinta Allah subhanahu wa ta'ala markuu ka hadlay wuxuu yiri innahu laysa lahu sultaanu ala alladhina aamanu wax awood shaydaanku wax awooda inuu shaydaanka laysa lahu sultaan awoodkum laha ala alladhina aamanu wa ala rabbihim yatawakkalun dadka ilaahay rumeeyay waa mas'alada ugu horeysa oo laga doonayo haddaad doonayso shaydaan insi imid jinni inaad ilaahay ka nabad gasho ilaahay ka badbaadiyo haddaad doonayso koow iimaan yeelo harta ilaahay rumaynta ilaahay ma taqaana wax laga wada waa ilaahay kaliya caabud waxna la wadaajin ilaahay caabud maxaa laga wadaa qowlkaada ficilkaada niyadaada baad ilaahay u gaar yeelaysaa ilaahay baad u gaar yeelaysaa cid intayna u baryeemaysid cid kalena raaci maysid ilaahay kaliya baad raacaysaa kitaabkaas ilaahay uu soo dejiyo boorka yaalo oo aan guryaha iska dhignay oo aan kalayn waa inuu kitaabka ilaahay xaakimku u noqdaa waa inaad asaga ka dambaysaa waa in noloshaada kitaabka maamula haddaad doonaysid inaad badbaado weeye fi dunya wal aakhirah haddii kale shaydaan insi jinni baa kugu ciyaaray marka wuxuu yiri alladina aamanu wa ala rabbihim yatawakkalun rabbigoodana isku haleynay waxa weeyaan tawakkalku waa jamaacu iimaan baa leeyahay hadda koora waxa leeyahay imaam shaafici miyuu ahaa baa intii yaman laga safray baa waxa leeyahay xajka baa la aadayo mid wuxuu arkay baa leeyahay dadka iska dhax socdo bilaa sahaya oo saad ba wadan kaasuu ku yiri warmay saadka de safar dheer baa loo socdaa kaasuu anigu mutawakkil baan ahay in ilaahay isku haleeya baan ahay markaasuu ku yiri de waayahay hadda de tawakkulka heerka ka gaaray waxaad samaysaa adeer dadka ka dhaxbaxo duurka iska mar orod markaasuu yiri ma dadkan la soconaya kaasuu yiri tawakkalta ala jiraabinas war dadka sifraarada dadka ay wataan iyo tuulusha dadka ay wataan baad isku haleysay orod ilaahay ma aadan tala saaranin waxa la rabaa marka ilaahay tawakkalaysan inaad la timaado asbaabta inaad la timaado baa laga doonaya oo waxa weeyaan hadda midna tusaale ahaan haddaad wadada raacdo waa inaad gawaarida iska ilaaliso midig iyo bidix mid aad martay moogta laakiin haddaad wadada dhex seexato wadadii de halkii gawaarida marayay inaad marto de waxa weeyaan waxa tahay qof isdayacay way tawakkul ma laakiin haddaad wadada inta dhinac ka marto oo gaariga inta soo bayro oo ku jiro markaas waxa weey adigu waxaad la timid waxa weeyaan asbaabtii baad la timid laakiin qadar ilaahay baa meesha timid marka asbaab la'aan lama noqdo asbaabtu wala la yimaada nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa la ogyahay markuu dagaalada galay in la oran jiray salaada marka la tukanayo waxa weeyaan salaatul qawf la tukada hubka lagu tukada waxa soo dhan waxa la barayaa dadka
ina asbaabta isticmaalaan oo ilaahay markaad isku haleynayso adoo ilaahay isku haleynaya asbaabtina aad la timaado marka waxaa la yiri asbaabta oo laga tago waxa weeyaan waxa la yiraahdaa at-ta'amud 'ala al-asbaab in sida reer galbeedka oo kale asbaabta la cuskadana waa kufri baa la yiri in asbaabta la cuskada oo la yiraahdo waxaan asbaab la'aan wax shaqeynayba male oo la wax walba asbaab ay u baahan yihiin la yiraahdo waa kufri baa la yiri moogta haddii aad asbaabta ka tagtana waxa la yiraahdaa waa doqoniina la yiri moogta maangaabnimo weey marka waa loo baahda tusaale ahaan waxa kugu filan Maryam bint Imraan markii dhashay Nabiyullaahi Ciisa alayhi salaam Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri waa qof haween oo dhashay waad garanaysaa tabarteed wuxuu yiri wahuzi ilayka bijid'i naqlati tusaqid alayka rutba janiin geedkan gilgil baa yiri gilgil Ilaahay wuu awooday ayadoo aanan geedka taaban inuu miraha u soo daaday laakiin waxa la barayaa nolosha la barayaa say u noolaan lahayd baa la barayaa waxa la barayaa in ay asbaab looga baahiyay ibn aadamka in asbaab la yimaadaan in looga baahiyay marka waa ku dheeraaday ashirkeeni waxaan ku dariyaa intaas oo kale aakhir zamaanka waxa la yiri shayaadiinta waaba xirkay soo goostaan kuwii Nabiyullaahi Suleymaan oo xirxiray baa soo baxay athar waxa jira laga wariyay Abdullah ibn Amr ibn Aas radiyallahu anhuma waxaan u malaynayaa muqaddamada Bukhari Muslim labadaba waa laga helayaa hadalkaas waxa kamid ahaa atharka laga wariyay Abdullah ibn Amr qaal wuxuu yiri in fil bahri badda waxa ahday shayaadiin masjuuna shayaadiin la xirxiray aw thaqaha waxa xirxiray Suleymaan alayhi salaam yuushaku waxa dhow buu yiri an takhruja in soo baxda fataqra ala an-nas qur'aanan markaas dadka qur'aan u akhrinaysa fataqra ala an-nas fataqra ala an-nas qur'aanan markaas dadka qur'aan u akhrinaysa way marka waxa weeyaan waad fahmaysaa shayaadiintu waa isoo matalaysa dadka ay soo ekaysiinaysa marka waxa loo baahan yahay in ilaahay ku xirnaanshihiisa la badiyo dadka intooda badanna waxa ay sameeyaan oo waxa weeyaan ka cawdan ayagoo ilaahay ka cararay ba waxay doonayaan in nabad helaan mana helayaan marka walaalayaal waxa loo baahan yahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ku xirnaano ashirkeena oo ku dheeraaday wabillahi tawfiiq salaamu alaykum wa rahmatullah